السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا ورركا كالفردي تي في قضبضا آدكم مغلي دونتانا وحا كاميدا حق أن إذن كهين عدي أمرتي إن شيخ شريف شيخ أحمد دودي دا إنو كسمايا ودوفو ورركي قدن بيا حفلة على مسار كمدحوينها جبلان أو ديب ودعضي مسؤوليين كترسن جبلان أو مالنتي لبادكو حيران مقدشو بعارضك جبلان أو إيدين وجيديي شريف شيخ أحمد ورفايس أفيار علمي أو شيغي إن سياسة لغوة دي وايا دود إيا دلقاد آن لغوة دي كارين جوجوب إيا ولي degdeg iyo Kenya oo si adag uga jawaabtay eedeyntii dalka Djibouti qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Kalfadhi TV daawadayaal haatan u diyaar garooba qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan dad badan oo Soomaaliha ayaa wali qaadan la talaabadii Sheekh Shariif Sheekh Ahmed loogu diiday in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isaga oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo halkaasi oo 26 bisha lagu waday inay ka dhacdo caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland waxa dadka qaar shaki ay galiyeen inuu san falkan wax badan ka ogeyn madaxweyne Farmaajo laakiin warbaahinta ayaa xaqiijisay in madaxweyne Farmaajo uu yahay qofka bixiya amarkaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wuxuu safar ahaan uga yimid Turkiga isaga oo doonaya in uu diyaarad kale ka raaco Muqdisho si uu Kismaayo u tago sida caadiga ah diyaaradda Turkish Airlines waxay soo degtaa 8:00 subaxnimo xilliga Muqdisho markii uu Shariif soo gaaray Muqdisho waxa la fariisiyay qaybta VIP-da ee garoonka aadan cadde si uu halkaasi ugu sugo diyaaradda Kismaayo u raaci lahaa taasi oo bixi lahayd 11 barqanimo intii uu Shariif ku sugnaa qaybta VIP-da ee garoonka aadan cadde waxa isna goobta yimid madaxweyne Farmaajo oo safar u ahaa wadanka Mareykanka halkaasi oo kaga qayb galayo shirka golaha ammaanka labada mas'uul ayaa la sheegay inay isku salaameen qaybta VIP-da waxaana Farmaajo uu ogaaday in Shariif uu safar u yahay Kismaayo dad xog ogaal ah ayaa sheegay in uu madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyay in diyaaraddaasi safarkeeda la baajiyo laakiin la taliyaashiisa ayaa soo jeediyay in qoraal loo bedelo si loo qaldo bulshada waxaana daqiiqada kadib markii uu Farmaajo duulay soo baxay amar sheegaya in aanay jirin diyaarad aadi karta Kismaayo fasax la'aan xilligaasi Sheekh Shariif wuxuu fadhiyay qaybta VIP-da ee garoonka aadan cadde arintan ayaa la yaab ku noqotay bulshada sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in warqad lagu dil alifay madaxweyne Sheekh Shariif talaabooyinka uu Farmaajo ku baacsanayo madaxweyne Sheekh Shariif ayaa si loo jibaarmay kadib markii uu gaaray magaalada New York ee dalka Mareykanka isagoo amar kale ku bixiyay in guud ahaan la joojiyo diyaaradaha tagaya Kismaayo ilaa 26 bishan oo ku aadan maalinta caleemasaarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe si aanay xamar uga bixin Sheekh Shariif iyo waliba Xasan Sheekh Maxamuud oo isna la filayay inuu Kismaayo aado dad badan ayaa la yaaban habdhaqanka guracan ee madaxweyne Farmaajo oo u muuqda ku xadgudbay xayndaabka siyaasadda daawadayaal haatanna ku soo dhawaada xog aan idinka hayno xafladii caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland oo dib u dhac ku yimid kadib markii dawladda Soomaaliya ay culays badan saartay Jubbaland lana joojiyay duulimaadyadii tagi jiray magaalada Kismaayo warar soo baxay ayaa sheegaya in dib u dhac ku yimid caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe 26 bishan ayaa lagu balansanaa in caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ka dhaco magaalada Kismaayo ee caasimada ku meel gaarka ah maamulkaasi waxaa dib loo dhigay waqtigii ay dhici lahayd xafladda sida uu go'aan ku gaaray guddiga qabanqaabada caleemasaarka ilaa hadda ma jirto waqti rasmi ah oo loo qabtay inay dhacdo xafladda wararka ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in laga yaabo in xafladda ay dhacdo bisha soo socota dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xayiraado dheeri ah oo dhanka hawada ah waxa ay ku soo rogtay magaalada Kismaayo iyadoo sheegtay in muddo 3 maalmood ah aysan wax diyaaradaha ka degi karin magaalada Kismaayo sababta ugu weyn ee dib u dhaca ku keentay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu sheegay in ay tahay xayiraada 3 maalmood ah ee dawladda Soomaaliya ay Kismaayo saartay waxa wali taagan doodii ka dhalatay xayiraadii la saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed oo loo diiday inuu u safro magaalada Kismaayo dawladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in ay ku tumanayso dastuurka waxayna dhaleeceyn badan kala kulmaysaa xisbiyada mucaaradka iyo waliba madaxdii hore ee dalka soo hogaamin jirtay wasiirka wasaaradda qorsheynta Jubbaland Aadan Ibraahim oo xirsi ayaa sheegay in mas'uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan maamulkaasi labadii maalmood ee la soo dhaafay ay ku xayiran yihiin magaalada caasimadda ee Muqdisho
oo xirsi ayaa waxa uu sheegay in dhowr howlwadeen oo ka tirsan wasaaraddiisa ay ku xaniban yihiin muqdisho kuwaasi howlo shaqo u joogay caasimadda shalay ayay ahayd markii amar ka soo baxay dowladda Soomaaliya gaar ahaan maamulka hawada Soomaaliya lagu joojiyay dhammaan duulimaadyadii magaalada Kismaayo tagi lahaa go'aankan ayaa saameyn xoogan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa garoonka magaaladaasi oo hagad ku jira maalintii labaad arrintan ayaa daba socota khilaafkii ka dhashay doorashadii Jubbaland ee dib loogu doortay Axmed Madoobe taasi oo ay ka hortimid dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland ayaa jawaab adag ka bixiyay shirkii jaraa'id ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya uga hadlay xayiraadii lagu sameeyay iyo xaaladda maamulkaasi Xidig ayaa waxa uu sheegay in Sheekh Shariif uusan si daacadnimo leh uga hadlin xaaladda cakiran ee dowlad goboleedka Jubbaland sidoo kale wuxuu xusay inuu taageerayo sidoo kale waxa uu xusay inuu taageero siinayo madaxweyne aan sharci ahayn isla markaana uu doonayo in uu ka qayb galo xafladda caleemasaarkiisa sida uu hadalka u dhigay dhankiisa Cabdinaasir Seeraar Maax oo isna sheegtay inuu madaxweyne ka yahay Jubbaland ayaa eedeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed Seeraar ayaa waxa uu sheegay in Sheekh Shariif uusan marnaba ka hadlin saraakiil iyo waliba madax ka tirsan dowladda oo hore looga celiyay Kismaayo intii lagu guda jiray ololaha doorashada maamulkaasi ugu dambeyn wuxuu ayaan darro ku tilmaamay in taageero loo raadiyo maamulka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo uu sheegay in uu dhibaato ku hayo deegaanada Jubbaland aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ka faallooda colaadaha iyo waliba nabadda geeska Afrika Afyare Cabdi Cilmi ayaa ka hadlay sida dowladda federaalka u adeegsato hay'adaha dowladda Professor Afyare oo ka hadlaya xayiraadii xukuumadda Soomaaliya ay saartay diyaaradii daraad ka qaadi lahayd garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku wajahnaa magaalada Kismaayo ayaa waxa uu tusaale u soo qaatay tuduc kamid ah gabay uu tiriyay Abwaan Hadraawi Afyare ayaa ka digay in si khaldan loo adeegsado hay'adaha dowladda iyada oo la iska indhatiraya dastuurka dalka waxaana uu xusay in siyaasadda lagu wadi waayay dood iyo waliba dulqaad aan lagu wadi karin joojoob iyo degdeg daawadayaal haatan ku soo dhawaada warbixin aan idinka hayno Kenya oo si adag uga jawaabtay eedayntii Djibouti uga timid dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay eedayn dhawaan uga timid dowladda Djibouti taasoo salka ku haysa loolanka ay labada wadan ugu jiraan xubinka noqoshada golaha ammaanka ee qaramada midoobay Djibouti ayaa isbuucii la soo dhaafay Kenya ku tilmaantay wadan aan lagu aamini karin nabadgelyada gobolka iyada oo tusaale u soo qaadatay khilaafka xadka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya kana mid ah saraakiisha sarsare ee xisbiga talada dalkaasi haya ayaa si kulul ugu jawaabay hadalkii ka soo yeeray Djibouti hadalkii ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti walaalkay Maxamuud ee uu ku sheegay in Kenya aan lagu aamini karin nabadgelyada gobolka waa mid nasiib darro ah waa mid khalad ah sababtoo ah Kenya ilaa markii ay xornimada qaadatay waxay ahayd wadan ka shaqeeya nabadda iyo xasiloonida ayuu yiri Aadan Barre Ducaale oo waraysiga laanta afka Soomaaliga ee BBC wuxuu intaasi ku daray in ilaa iyo 40,000 oo ciidamaha ay dibadda u dirtay Kenya si ay uga qayb noqdaan nabad ilaalinta caalamka waxaan ka qayb galnay dib u heshiisiinta wadamada Koonfurta Suudaan Soomaaliya Namibia Sierra Leone Liberia ilaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxaan qayb ka nahay wadamada uu Mareykanku ka mid ka yahay ee dagaalka kula jira ururada argixisada iyo waliba burcadbadeeda ayuu hadalkiisa ku yiri Aadan Barre Ducaale Aadan Ducaale waxa uu yiri Soomaali baan ahay muwaadin ka ah Kenya mana aqbalaya in Soomaaliya ay qaadato badeena Aadan Barre Ducaale ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in Kenya ay cod aqlabiyad ah uga guuleysatay Djibouti markii ay hanashada kursiga Afrika lagu matalayo gobolka ugu tartameen ururka midowga Afrika gudihiisa Aadan Barre Ducaale oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay hadduu leeyahay Kenya nabadgelyo kama jirto Djibouti iyo Eritrea ayaa is hor fadhiya dhowr iyo 10 sano militarigoodana ay isfiirinayaan Kenyana waa wadanka kaliya ee nabadda loo soo doonto qaxootiga martigelisa waana meesha kaliya ee lagu soo cararo marka haddii aad isbarbar dhigto Djibouti iyo Kenya keebaa lagu aamini karaa amniga gobolka ayuu yiri Aadan Barre Ducaale wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf oo safiirada ajnabiga ee dalkiisa ku sugan kala hadlaya arrinta la xiriirta musharaxnimadooda kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ayaa waxa uu sheegay in Djibouti ay u baahan tahay codadka dalalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa kulan la yeeshay safiirada ka socda wadamada ajnabiga ee ku sugan dalka Djibouti wuxuu dhanka kala sheegay in haddii Kenya ay kursigaasi hesho ay saameyn ku yeelanayso muranka kala dhaxeeya Soomaaliya isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaasi raaciyay in Kenya aan lagu aamini karin amniga gobolka
jabuuti ayaa weli ku adkaysanaysa in ay tartan la sii wado Kenya marka la isla tago golaha amniga ayna isku daydo in ay ku guuleysato in